masjidka tawxiid oo ku yaala magaalada Ceerigaabo ayaa dib u dhis ballaaran iyo casriyeyn lagu sameeyay waxaana munaasabad ballaaran oo habeennimadii xalay lagu qabtay masjidka ka soo qayb galay barasaab ku xigeenka gobolka Sanaag Maxamed Khaliif Nuur maayirka degmada Ceerigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur maayir ku xigeenka xildhibaano cuqaal waayeel culimo mas'uuliyiin iyo marti sharaf kale xafladda dib u furista masaajidka waxa hadalada iska daba qaatay mas'uuliyiin culimo iyo marti sharaftii kale ee ka soo qayb gashay dib u furista masjidu tawxiid oo uu dhisay Cismaan Jaamac Gaafadhi isla markaana dib u habeyntan ballaaran ku sameeyay waxaana ay Ilaahay uga bariyeen inuu miisaanka xasanaadka ugu daro waxaynu isugu nimi masaajidkii masjidu tawxiid oo dib loo dhisay oo dib loo hagaajiyay inaynu insha Allah furno maanta oo ah maalintii ugu horeysay jimcii ugu horeeyay ee bisha Ramadaan masaajidka bedkiisu wuxuu ku fadhiyaa 50 mitir iyo 40 mitir oo ballaca waa wareega dusha oo dhan inta gudaha inoo dhisan waxa weeye 26 iyo 19 mitir square dhinacyada bariga iyo galbeedka wuxuu ku leeyahay sijaayado marmara oo loogu talagalay iidaha in lagu tukado masaajidka waxaan lagu talagalay ilaa 6 dabaq in la saari karo ayaan loo qorsheynay oo u dhisnay ilaa 6 dabaq baa la saari karaa mustaqbalka oo aan ugu talagalay inta hoosunba imika inoo dhisan masaajidku wuxuu leeyahay 13 guri oo isugu jira madrasado malcaamado dukaamo sii jeeda meelo dumarku wax ku bartaan suuliyo iyo jikad wax lagu karsanayay waxaan isna u mahadnaqayaa muxsinkii dhisay masaajidka dhisay masaajidka saa uu qurxiyay iyo dhismayaashiisa waxa weeye dhameystiray Ilaahay miisaanka xasanaadka Allah u saar fadliga de masaajidadu ay leeyihiin iyo qiimaha ay leeyihiin islaamka dhexdiisa cid walbaaba way garanaysaa qiimaha ay ugu fadhiyaan muslimiinta ugu fadhido iyo fadliga nabi maxamed uu sheegay sallallahu alayhi wasallam ninka masaajidka dhisay waa u ducaynaynaa insha Allah wax badan ayaa Ilaahay jalla jalaaluhu waafajiyay oo uu maaragtay miisaanka xasanaadka Allah ugu daro masjidka sida loo qurxiyay Ilaahay subhanahu wa ta'ala qof kasta oo umrigiisa ay 24 saacadood ba ugu soo wareegta maalintii habeenkii 24 saacadood waxaad qiyaastaa oo buu yaqal u qaadata inteebada masaajidka ka gashaa inta aad masaajid ka gasho inteeba Ilaahay kaligii leeyahay muxsinka masaajidkan dhisay Cismaan Jaamac oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala waafajiyay inuu antidiisa wax kamid halkan gashado waxa la og yahay dadku waxa ay Ilaahay hormarsan u beeleeyeen wixii ay ka tagaan hadii ay tooda noqoto wixii ay ka tagaan waxay ku leeyihiin wixii uu ay Ilaahay u hormarsan xaqiisa dayci Ilaahay wuxuu soo diray Cismaan baa Ilaahay u soo diray waa ka hagaajiyay innagana sidaa uu ka sheekeynay walaalka iga horeeyay Cabdirashiid waxaan leenahay wixii aynu si hormarsano oo dhigano oo baa meel inoo yaale qof waliba ku talagalo sidaa uu maanta u hagaajiyay Cismaan waxaan u leenahay miisaanka xasanaadka Allah ugu daro masaajidka iyo wixii khayrka uu sameeyay anigu masaajidka waxaan u jiraa 20 mitir waxaan aaminsanahay in aniga la dhisayba sheegtay in aakhiro looga dhisay qofkii masaajid dhisa Cismaan Jaamac Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha barakeeyo sida quruxda leh uu dhisay laga soo sheekeeyay culimadu ka soo sheekaysay iyo codkarkuba ay ka sheekeeyeen waxa weeye qofku wuxuu si horumarsado ayaa aakhiro ka horeeya waajib ku ah dadkan xaafadatan masaajidku looga dhisay quruxda badan ilaa inta ilaaliyaan masaajidku dal badan buu ku yaal masaajidku guriyo badan buu leeyahay masaajidku waa weyn yahay wuxuu u baahan yahay nadaafad wuxuu u baahan yahay ilaalin wuxuu u baahan yahay dayactir gogosha quruxda badan oo cusub inanay masaajidka loo ogolaan inay wasaqowdo anigu waxaan dad xaafadan degan baahi weyn baan u qabnay masaajid aan ku oogno salaada jimce iyo taraawiixda iyo tahajjudka iyo acmaalaha kale ee looga baahan yahay masaajidada lagu oogo maanta waxaa noo soo korodhay waa laba farxadood masaajidka cusub inaan ku faraxno
iyo inaan ku faraxno masaajid aan laga oogayo dhammaan acmaashii oo dhan. ilaahay miisaanka xasanaadka ha kugu daro. waayo waxaanu masaajidkan ku tukan jirnay sidii yaasiinba sheegay, isagoo sidaan ugu tukanayno marka roobabku da'aan uu marmar nagu darooro ama albaabaduba ay nooga soo galaan roobku. maantana dee waad aragtaa sida laga dhigay. waynu u ducaynaynaa muxsinkii masaajidka quruxda badan inoo dhisay cismaan jaamac, ilaahay ha ka abaalmariyo, miisaanka xasanaadka ha ugu daro. masjidkani masjid ardayda iyo da'yarta hadda soo koraysa iyo shabaabku ay ka aflaxaan allah ka dhigo. waxaanu leenahay wax la qabto waxaynu dhammaanteen ognahay inaynu geeriyoonayno oo halkan aynu ka sii sahay qaadanayno oo aynu joogno ifka alla inoo keenay inaynu aakhiro u sii shaqaysanno iyo janno. dariiqii jannada loo mariyey iyo gurigii alla ku ballan qaaday dadka gurigayga dhisaa waxaan abaalkooda ka dhigayaa janno. ugu dambayntiina maayirka degmada Ceerigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo badhasaab ku-xigeenka gobolka Maxamed Khaliif Nuur ayaa iyaguna halkaasi ka hadlay, waxaana ay u mahadnaqeen muxsinka masaajidkan dhisay. marka waxaan leeyahay Cismaan wax wanaagsan buu qabtay, masaajid qurux badan buu inoo dhisay, masaajidda kaluu dhisay, kii saddexaad weeye. markaanu iswarsanay Cismaan waxaan leeyahay intaba ilaahay miisaanka xasanaadka ha kugu daro, jalfirfudawsana ha kuu geeyaanu leenahay. ilaahay saasaan weydiisanayna. siduu ka sheekaynaya injineerkii masaajidka dhisay, tacabkani masaajidka keliya kuma koobnee, wuxuu ka sheekaynaya meelo ay wax ku baranayaan dhallinyaradu, dumarku. masaajidku iyo waxbarashadii wayse saaran yihiin. waxaanu leenahay tacabkaa ilaahay ha kaaga abaalmariya jannadiisa, jannooyinka ugu qaalisan. cismaan jaamac maxamuud, cabdirasaaq sugulle, MMTV, Ceerigaabo.